السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا الأمان أخيارتي أنت شلون كحران أنت عصب دمانتين كسودو هذا مقال كان وأنا يحيى محمد أحمد وحن إن كما قنين أبو مدة بالكل هذا مكبلنبا حكم مشغول سن المشاريع كله إن شاء الله تعالى ديبكو قاعدون تان اسمه هو ذي يقابين تو ذاك مشغول سنة لكن إن شاء الله تعالى هذا الصون قني وحنا رجينا يهدي إلى هذا إن سيدي هوري هيد أسبوع كستا إن المقال سوق لنا مكبلنبا أو كفودي دونه مقال كمان تو حربا إن كجاه اللقطة مهمة qodobkaasoo xiriir la leh wax loo yaqaano maamulka maareynta kamana wada marka ku leeyahay maamulka maareynta shirkadaha iyo waxa ka wada xataa shakhsiyan waxyaabaha qofka uu nafsadiisa ku maamuli karo ku xaqiijin karo maxaa la raado waxyaabaha uu rabo waxa kamid ah in uu dejiyo ahdaaf uu rabo inuu xaqiijiyo inuu dejiyo ahdaaftoona waxa loo xaqiijiyaa qaab badan qaabkan amaanta ka hadli doono waxa la yiraahdaa smart goals waa erey ingiriisa ereyga smart waxa loo soo gaabiyay 5 kalimadood oo noqonaya astaamaha laga rabo hadafka caqliyeysan la xaqiijin karo astaamahaas waxay yihiin waa 5 astaamood waxaan loo soo gaabiyay 5 kalimadood ee ereyga smart ku jira ta koobaad waxa loo soo gaabiyay specific oo ah in uu hadafku xadidnaado talabaad inuu hadafku yahay measurable ama la qiyaasi karo saddexaad oo ah achievable ama attainable ama assignable ama agreeable waxa rabto leh oo iyana ay tahay in qofka hadafkan la sameey karo la xaqiijin karo macnaheedu yahay iyo realistic oo taafaraad ah arta loo soo gaabiyo ama relevant saato inta tirada inuu waaqic yahay xiriirna la leeyahay noloshaada iyo time bound inuu yahay ama timely inuu waqti ku saleysan yahay hadafka shantaas astaamood ayaa horta loo soo gaabiyay ereyga smart وعن شنت استعمود إلى جرب هدفك سيا أولاً كان هدفك إنه هدف سمارت أما هدف عقلي يسن أو سيقرح بدن لو في الكرو هذا هذه أن شرح يركب حيو إلى سمارت مركز كوباد وح كاني أم اختراعي من لا يراضو جورج طوران أو اسمي محل راضا أهدافته سيدا ugu macquulsan loo fuli karo ayuu wuxuu ku sheegay shanta kalimadood inkastoo gadaashiis ay isbedeshay laakiin hadana asaga ereyga eeda wuxuu soo gaabiyay wax la yiraahdo assignable oo macnaheedu yahay in waxaan la qabanayaa qof loo dhiibi karo taasoo ku socotay markii hore shirkadaha gadaasheed qof walba wax ka qoraa si gaar ah ayuu ereyada u macneynay laakiin si guud astaamahan waa astaamaha hadafka naajixa ama la fuli karo laga rabo in laga helo dhammaantood in laga wada helaa qasab maaha laakiin ugu yaraan waxaa muhiim ah in dhowrka ugu muhiimsan ay ku jiraan oo مثلا oo kale markaan ku leenahay specific hadaf kasta waa inuu specific noqdaa specific hadafka wuxuu ku noqon karaa in la xadido cidda sameynaysa waxa la sameynayo waqtiga ay qaadanayso in la sameeyo meesha lagu sameynayo waxyaabahaas oo dhan oo hadafka haddii aan la xadidin ma noqonayo hadaf la fulin karo مثلا لو كان qofka hadda yiraahdo waxa rabo مثلا kale inaan taajir noqdo ama yiraahdo kale مثلا kale arday oo kale inuu yaraado maadadan inaan darajo fiican ka keenaa hadafkaas oo kale lama dhihi karo waa hadaf specific ah lama dhihi karo sababtoo ah lama garan karo waxa u taqaanaa taajirnimada lacag intee la eg baa u taqaanaa مثلا dadkii ku kala duwan yihiin adiga xataa way ku kala duwan tahay waqtiyada qaar maxaad u aragtaa مثلا oo kale darajo fiican maxaa u aragtaa ma 70 inaad inta darajo fiican kula ma 90 kula boqolkiiba boqol kula marka hadafka waxa la rabaa in marka hore la xadido waxa uu yahay waxa la qabanayo dhammaan waxyaabaha la xiriiro dhan la xadido talabaad waxay tahay in hadafka uu noqdo measurable la qiyaasi karo oo qofku uu qiyaasi karo hadafka xataa adigoo dhaxbartamaha kaga jira aad dhigi karto مثلا inta ay hadhay marka dhamayso kalena aad dhigi karto hadafkan boqolkiiba boqol waa fuliyay ama intaas ay iga dhiman haddii laakiin hadafka uu isna aan la qiyaasi karin oo hadaf duuduuba leh way adag tahay inaad sheegto marka aad xataa la gaaro waqtigaba in aad fulisay wixii oo dhan iyo inaad xaqiisay lama kala saari karo ta saddexaad waxay tahay inuu hadafku noqdo achievable mid la fulin karo dadka qaar waxay yiraahdaan attainable waa macnihii macno u dhow ninkii aan hada soo sheegnay maxaa la dooraan isagu wuxuu yidhi xagga assignable in qof loo magacaabi karo shaqadan مثلا shirkado kale ay dhigi karto shaqada waxa iskala hebel waxa hebel agreed upon ayaa jirta iyana in la isku raaco taasna waxay sheegaysaa in marka qaar astaamaha qaar aanay ahdaafta ayna ahayn in laga wada helo
مثلا ممكن agreed upon waxay shaqeynaysaa hadafka haddii uu shirkadu kale yahay in la isku raaco laakiin hadaf shakhsiyan adiga u baahan tahay uma baahna in isku raaco sababtoo ah cid kale ku raacaysa ma jirto adiga unba qaadanaya erga achievable hadafka inuu achievable noqdaa waxay la macno tahay inuu la sameyn karo adoo fiirinayo waxyaabaha aad haysato resourceska iyo waxyaabaha aad haysato adigoo fiirinaya hadafkan ma sameyn kartaa haddii aanan sameyn karin hadafkaas ma aha hadaf smart ama ta afraad ama astaanta afraad ee laga rabo hadafka inuu yeesho waxay tahay waxa loo yaqaano hadafka inuu noqdo realistic waa inuu waaqic noqdaa oo waaqicaaga wax ku saleysan noqdaa sida مثلا oo kale hadaf aan waaqic ahayn waxa tusaale ah inaad tiraado kale مثلا oo kale hadii aad hadafka u ah مثلا oo kale inaad miisaanka iska yarayso inaad tiraado kale مثلا oo kale isbuuc soo socda waa in iga dhacdo 220 kilo ma dhici karto hadafkaas oo kale realistic ma sidaas la eg dadka qaar ayaa realistic meesha ka tahay relevant isticmaal erayga taana macnaheedu wuxuu yahay hadafka inuu hadaf xiriir la leh yahay noloshaada iyo ahdaaftaada kale oo hadafku wuxuu xiriir la yeelan karaa ahdaaftaada kale marka uu u adeegayo ahdaafti kale iyo wajahadii u socdo marka uu adeegayo hadii hadafkan uu ka mashquulinayo hadaf kale oo ka muhiimsan hadafkaas ma aha hadaf relevant ama ku saleysan ahdaaftaada kale lamana fulin karo sababtoo ah ahdaaftika iyo yoolkaaga kale asaasiga ahaa ay meesha ka saarayaan waxa kaloo ta u dambaysa ama astaanta shanaad ay tahay inuu hadafku noqdo time bound ama timely hadaf waqti ku xiran waqti in lagu xiro hadafka waxay siinaysaa macno gaar ah macnahaas oo ah in waqtiga mar walba soo dhawaadaba aad dareento in la dhameeyo inuu hadafku yahay degdeg inay ku geliso degdegaas oo keenay in wixii aad si dhaqso u qabato wuxuu kaloo qayb ka yahay in waqti uu yeesho wuxuu qayb ka qaadanaya in hadafkii beri la qiyaasi karo oo waqtigii markii la gaaro inta aad qabatay inta la eego la dhihi karo intaasna ka qabatay intaasna waad way ka dhimanta amaba aan dhihi karno hadafkan sidii la rabay u qabatay marka shanta astaamood ayaa laga rabaa qofka hadafkiisu smart u noqdo in uu ka dhigo intaa dad baa waxay ku sii dareen laba eray oo kala ah evaluated iyo reviewed oo xagga ka dhigay eraygii smart aha smarter oo ah hadafka in dib u eegid lagu sameeyo marka aad dhaxdiisa ku sii jirto in uu sidii aad rabto u soconayo lana qiimeeyo hadafka marka wuxuu noqonayaa eeraadeen mid smart kasi smartsan almuhim astaamahaas waa astaamaha la dhihi karo hadafka ay macno u sameynayaan fududeynayaan in qofka uu sameeyo waxaana fiican qof walba in uu ku saleeyo hadafkiisa astaamaha noocaas si ay ugu fududaa karto fulintooda waxaan rabaa intaas inaan ku gabagabeeyo muuqaalkan maanta waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ahdaaftiina iyo yoolkiina aad ku saleyn doontaan astaamahaas si ay idinkugu fududaato inay xaqiijisaan waxaan rajeynayaa inaan muuqaalo mawaadiicdeeni ku saabsan aan soo gudbiyo haddii ilaahay idmo sida teknolojiyadii insha allah waa soo gudbin doonaa iyadoo level aan u sameyn doono haddii ilaahay idmo iyo courses isku xidhan oo leh dhexdhexaad ilaa qayb dambe ilaa bilow waxaan kaloo insha allah soo gudbin doonaa casharo kale oo iyana diini ah haddii ilaahay idmo waxaan rajeynayaa inaad la wadaagtaan intaa isleedihiin way anfacayaan macluumaadka channelkeena aad iyo aadna idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu